السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ليال سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم waxaan toddobaadkii hore aan ka soo hadalnay caamul xusn, sanadkii murugta. nebiga calayhi salaatu wasalaam sanadkaa aad buu u murugooday. adeerkii baa dhintay abu taalib oo nebiga difaaci jiray calayhi salaatu wasalaam. haweenaydiisii caqliga badnayd khadiija bintu khuwaylid ayaa dhimatay sanadkaa oo nebiga maruu walba ag taagneed calayhi salaatu wassalaam. sanadkaa tobanaad wuxuu nebigu tegey calayhi salaatu wassalaam daa'if markuu reer maka u ka quustay ay dhibeen ayuu is yidhi nebigu waxaa laga yaabaa reer daa'if inay kuu gurmadaan ay kuu kaalmeeyaan. laakiin reer daa'if nebi maxamed way soo shiideen sala allahu calayhi wasalam ilaa ay dhiig ka yaaciyeen nebiga calayhi salaatu wassalaam. sanad aad u murug badan ayay ahayd sanadkaas. nebigu calayhi salaatu wassalaam aad buu u murugooday. waxaan caawa eegi doonnaa hadduu alla yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nebigiisa u reexaynaya muxameda sala allahu calayhi wasalam. nebigaa la leeyahay nebi allow ilaahay baa ku doortay, rasuulkii ilaahay baa tahay. adduunkan haddii lagu dhibo naxariis iyo khayr iyo wanaag ayaa kuu dambeeya rasuulkii ilaahay. nebiga ayaa la dalxiisinayaa calayhi salaatu wassalaam. waa leylatu lisraa'i waalmicraaj. nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa la kaxaynaya, samooyinkaa la geynaya. ilaahay mu'miniinta waxa u diyaariyey janno iyo wanaag iyo khayr ayaa la soo tusayaa. darajada uu ilaahay agtiisa ku leeyahay la soo tusayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam. nebigu wuxuu soo arkayaa gaalada iyo dhibaatada sugaysa ayuu soo arkayaa nebigu calayhi salaatu wassalaam. waa habeen quraad, isra iyo micraaj ayaa la yidhaahda. isruhu waa nebiga oo la dheelminayo calayhi salaatu wassalaam. maka laga kaxaynayaa, baytulmaqdis ayaa la geynayaa. micraajkuna waa nebiga oo baytulmaqdis laga kaxaynayo calayhi salaatu wassalaam ilaa iyo samooyinka la marinaya nebiga calayhi salaatu wassalaam. qofkii hadduu ku casuumi uu ku soo dhoweyn waxaad soo raacdid ayuu kuu samayn. baabuur buu kuu soo diri, haddaad ka fog tahay diyaarad buu kuu soo diri. nebiga calayhi salaatu wassalaam waa la soo dhowaynayaa, ilaahay baa soo dhowaynaya. wax uu soo raaco ayaa loo soo dirayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam. insaankan way ilbaxay. diyaaraddu maanta socodsiiyo hawadaasu marinaya diyaaradda. odaygii iyo islaantiisii iyo carruurtiisii iyo aqalkii oo dhan bay waddaa, hawadaas ay maraysa. ilaaha raxmaanka ah, ilaaha shay walba kara, shay walba abuuray, miyuuna karin inuu nebigiisa u soo diro wax duulo oo kaxeeya? ilaahay waa kala subxaanahu wa tacaala. nebigu calayhi salaatu wassalaam isaga oo maka jooga, gurigiisii jooga nebigu, xamza iyo jacfar ay ag hurdaan nebiga oo nebigu u dhaxeeyo calayhi salaatu wassalaam.
وسنة كي لبية طبنات يعني لبية طبن سنة أي النبي نبدأ لقى جوجا سقوا النبي جوهردو سخح أي تهي أي سقف كي جوري جيس النبي جا أي كرلا قاضي عليه الصلاة والسلام وحصاق على ملك جبريل إيا ميكائيل بصاق عليه الله بملك نبي قال لقاضي عليه الصلاة والسلام ولا الله بحي بيها الزمزم كأكتيس علك أي النبي قال لجيفي عليه الصلاة والسلام لا بتسي شرفت الله هيد أي الله شيحي والله ما يري ما دي من أيوه وقدرة ربي ويا سبحانه وتعالى بيه الزمزم كأي الله ما يري وحال لقد وحيي علمي النور يا لقد وحيي ملك جبريل أيام مري كدبنا والله هجاتي والله حري علوشيس قرب كأيام لقى شام بدي النبي عليه الصلاة والسلام شام بدي النبي نمده أيام الغرفت وحال الله كان النبي براق حيوان لا يلاهدو علماء waxay ku tilmaamaan nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wa xayawaan cad buu nabigu yiri oo dheer dameerka way ka dheer tahay baqashana way ka gaaban tahay anbiyaadii hore ay raaci jirtay kaanad yani waxay ahayd anbiyaada nabi ibraahim ayaa markuu soo booqanayo inankiisii ismaaciil إلهي واسو ساري شري أنبياء هذا مركز سمد الله قاضيه ذا بدأ سيسو كوري شيرين براق أيام مقعيقة اللي براق يعني وحي علماء دولي هذا وحي كتمد برق هلاع أي كتمد ويقرد دار تحي سيدا يفتينك أوكالي إنسان كما أنت ديارات أرد سينية حظ من الإلهي سبحانه وتعالى إلهي وحا أصد دري حيوان كبراق ليله خاصة النبي الله كان عليه الصلاة والسلام أرد كيغا وحي إيغا إسا لغا هيغا ماشا إنده وقود أماضو سيدا قد رينش أي ديغس وحي لا ذا إلا بباد بي لا ذا جبريل بعدين عمدي كحيغا ميكائيل نقل عبده أيو كحيغا نبي عليه الصلاة والسلام ويلدو شيدا بدس براغاسي ويلدو شي نبي سيدا أسو سعتي أي بيت المقدس أي تمت بيت المقدس أي مانتا يهود هيست مسجد كا قفك كنت كذا والنبي عليه الصلاة والسلام أو شاغي شنبقل أو صلاة دا كنت كتي يعني ما كان قفك كنت كذا وبقل كل أو صلاة مدينة قفك كنت كذا وحنقول هذا وكن صلاة أي لديك أنت الصلاة دا كنت كتي بيت المقدس شنبقل أو صلاة دا لديك أنت هاشا يهود ما أنت أي قاتان أي كل عياريان أي هدا أي دمينيان بقى ماشي وحي أهيد ماشي أنبياء إلهي لغا سو ديري جيري أي أهيد ماشي أي النبي قال كان عليه الصلاة والسلام وحا فردد الباب على قضاء أي النبي كحد عليه الصلاة والسلام دابديس أعقلها وتوكل حرق شيئا وإلهي تأثار النبي مؤرن والله إلى لنا يا طبعا هذا النبي مؤرن عليه الصلاة والسلام إلهي باي إلى لنا يا الباب كأي كحد مركز النبي عليه الصلاة والسلام مساجد تقال بيت المقدس وحو النبي أركي أنبياء إلهي وماشا شوكت أي النبي أركي عليه الصلاة والسلام نبي آدم نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى أنبياء إلهي أي إلهي اسكو كان ماشاس إلهي منا وحو البكرين وبورتو ذا لغا سو صارو حقا سالا كان أنبياء علماء waxay leeyihiin waxaan ka faa'iideysanayna awal waxa haysta Bayt al-Maqdis
imaamnimada waxaa lahaan jiray yahuuda oo laga dambeeyey waxaa la leeyahay hadda kadib bani israa'iil maadeen waan ilaga bedelayaa imaamnimadii nebi moxamed baa soo baxaya calayhi salaatu wassalaam isagaa la wareegaya nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam xaggaasuu ku tujinayaa ambiyaadii ilaah iyo rusushii imaamu rusul nebigu imaamkii buu ahaa calayhi salaatu wassalaam xaggaa markii la iskugu yimid ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam ambiyaadii ilaahay baa la baray kani waa nebi ibraahim kani waa nebi muuse kani waa nebi ciise ambiyaadii ilaahay ayuu nebigu arkay calayhi salaatu wassalaam waa walaalihii waa raggii dacwadan khayrka kala shaqaynayay nebiga calayhi salaatu wassalaam walaalayihiin dhismo quraatee u socdaan oo dhisayaan diinka islaamka ah ayay dhisayaan nebiguna waa jaajuurkii ugu dambeeyey ee qurxinayay dhismaha weeyaan nebigu calayhi salaatu wassalaam markuu meeshii isa soo taagay waa la aadaamay kadibna waa la iqaamay way is aageen ayaa tujini waa ambiyaadii ilaahay ayaa horkici ma nebi aadam oo abulbashar ahaa ma nebi ibraahim jibriil baa calayhi salaam nebi maxamed qacanta qabtoo ku yidhi taqaddam xagga hore istaag rusushii ilaahay ambiyaadii ilaahay ayuu tujinayaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam imaamu rusul isagaa lagu khatimayaa risaalooyinkii oo dhan isagaa lagu khatimaya nebi ka dambeeya oo soo baxaya ma jiro xagganay ku gagabayso nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam rusushii 2 ragcadood buu xaggaa ku tujiyey markii uu salaadii uu ka baxay nebigu aad buu u haraaday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kadibna 2 weel baa loo keenay midna caanaa ku jira midna khamraa ku jirta waa intaan khamrada la xaaraan yeelin nebigu calayhi salaatu wassalaam koobkii weelkii uu caanuhu ku jiray ayuu qaatay oo cabbay markaasuu malaku jibriil garabka ka garaacay gacanta uu ku dhuftay hudiita alfitra aw asabta alfitra fitradii ayuu ilaahay ku waafajiyey buuri khayrkii baa lagu waafajiyey haddii aad cabbi lahayd khamrada غوت أمتك أمتك ويلومي لهيد بالنبي قال عليه الصلاة والسلام نبي دابدي حقا سوكو حدي كدبنا النبي وحا لفوشي حقا يسمد أي الله قاضي دابدي حقا سوكو حدنا سوي سوغي ساه إلى النبي كسو نقون عليه الصلاة والسلام أنبياء ذي ولا سيكي حي يكنا نبي محمد بيسود وين يعني سموينك أيا لوسي شرحي أنبياء ذي إله وسوشي نبي عليه الصلاة والسلام وحال السعد ملك جبريل الباب كي السماء الدنك سماء الدنيا الباب كي يجيبوا قراعي والله غفري وحاكو سود دوي نبي آدم باكو سود دوي عليه السلام وسود دوي بركو السلام كدب إنه النبي يهينا وأخري إلهي وحا أوتصي أرواح دي روح دي تدكي شهداء ده الطريق إلهي كل انتي أرواح دو دي بكا أكدنا عمدك آدم عليه السلام تدك أهل النار كا أرواح دو دي أردنا وحا لقو أروريتنا عبدح النبي آدم كدب نبي عليه الصلاة والسلام قربا لوكي حي صمدي اللباد وقراعي ملك جبريل والله غفري وحاكو سود دوي نبي الله يحيى ابن زكريا هي النبي عيسى اياكو سود دوي وإلى كل من وسلام النبي عليه الصلاة والسلام كدبنا وحي قرا النبي نمديس نبي قرب الله سي وضع صمدي صدحات الباب كيا لا قراعي والله غفري نبي قال له سود دوي نبي يوسف سود دوي عليه السلام
وسود دوي ونقر النبي نمديس صمدي أفراد سيدا سلك بالله قراعي الباب والله غفري نبي إدريس بسود دوي نبي هارون أياكو سود دوي كدبنا الصمدي اللي حاد بالنبي قال له كحي عليه الصلاة والسلام وحكسو أركي وكسو دوي الصمدانا موسى بن عمران نبي موسى وكسو دوي نبي سنة وقري نبي موسى مركي والنبي محمد نافي أيو النبي موسى أوي عليه السلام مركاسا لغو يلي ما يبكيك محاكا أو هنايا وحيلي وحال أويا ويليام ودبضي لسو صاري أي أمديسو جنة كهر جلسة أمديدا الله وناكسنا أو في عناوير ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أمد النبي محمد با كهر جلس جنة أمدها كلام كدبنا النبي قال سي وضع عليه الصلاة والسلام صمدي تضبات أي النبي قال لقاسي سيدا سلق والله غفري الباب وحا كسو دوي النبي إبراهيم عليه السلام وكسو دوي نبي الله سو دوي وصلام النبي إله كدبنا النبي قربا الله سيكحي إلى ما شاء الله إله سدرة المنتهى وقيد آدوي قيد قبه وآدوي وياه ماشا سالو سود ويا النبي عليه الصلاة والسلام إذ يغشى السدرة ما يغشى علماء waxay ku tilmaamaan nabigu wuxuu arkay عليه الصلاة والسلام geedka weyn oo balanbaalis baashan la yiraahdo balanbaalis gibigeegu wala dahaba ayaa ku wareegsan oo ku gooxaysa meesha waa ayad cajiib oo wax la yaabo xaggaas أيو النبي عليه الصلاة والسلام وحو أركي ملك جبريل بو أركي على صورته الملكية ملك جبريل أو ملقة أول بشر بو إسكسو ديجي قف بو إسكسو ديجي لكن وحو أركي مركن ملك جبريل أو ملقة صورة دي إلهي وأبوري وقرح ذا بدريد أو لح بقل أو بادلة أيو أركي كذب النبي عليه الصلاة والسلام كرب الله سيكحي ماشا النبي محمد كل يجيب الناف إلى بيت المعمور أي النبي قال كان عليه الصلاة والسلام بيت المعمور ومسجدك أي كنت كذا ملائكته أي كنت كذا مالكي وحا قال تضباط كل أو ملك باقلا دبنا أقومسوا النقضاء مر والبا حقاس النبي عليه الصلاة والسلام كرب الله سيدا في النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بان نبي الله الله أكبر إلهي الله محاكوين إلهي هذا الكيسب المقل سبحانه وتعالى إلهي با صبر سينا يا النبي صبر بال ليه النبي الله قالوا دو ولي قد بها كل بان ريحئي وناكي خير باقوس الرسول في إلهي كذبنا النبي عليه الصلاة والسلام وحال فرض يالي صلاة فرض كأهل كنتم صلاة بلغ فرض يالي النبي عليه الصلاة والسلام كنتم صلاة الصلاة خير تيجا الدعوة فالصلاة منزلة دي الدعوة مكانة دا إلهي أكتس أي كل هذا حقا صلاة فرض يالي واجب إن يتحي لكن وكنتم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مركو الله صور داعي مركو أكسعدو نبي موسى وأشاغي إمسال لغو صفر ديالك كنتم صلاة أيها وحاوي أمضي دي ربن إسرائيل وكو قوة بضنيد أمضى هذا ويكري وايه إلهي كن قو إلهي إقرد دي ملك جبريل بالله تشهدي ملك جبريل بايلي ها وإشاري ها بكويري كدبنا دبو ولا نقضي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بويديس التخفيف إلا خفيفيو طبعا بالله قريدي أفرط بالله صور داعي سيدي سلك بالنبي موسى الله صامري نبي موسى يلي إلهي كنا قادر ولا تجي إلهي وك خفيفية صدق طبعا كلا لقريدي هذا لبعض طبعا كلا لقريدي شنية طبعا بالله قسيريدي شنب النبي كسوهر عليه الصلاة والسلام waxaa lagu yiri nabiga khalaas shantaas ayaa faradku u ah adiga iyo ummadaada ajar ahaana waxay la dhigantaa kontonkii salaadood baa la dhigantaa wa fadli
ninka ka taga maxaad u malayn shantaa waqti waa shan waqti 10 ragcadood 10 ma aha maxaan ku dhahaa 10 daqiiqo ma ah salaad shayga aan tukanayno waa 10 ragcadood 10 ragcadoodna ma waa 4 ragcadood 10 daqiiqana ma ah fududahay ninka ka taga maxaad u malayn in salaad tukan salaada xagga lagu soo farad yeelay waa shan waqti bas ahlu naarka marka la weydiiyo ee la yiraahdo ma salakakum fi saqar naarta saqar la yiraahdo maxay idin galiyay inagu goran maxay oranayaan qaalu lam nakum min al-musallin dadka tukada kamaanu mid ahay maanu tukan jirin bal ilaahi waxa uu leeyahay fawaylu lil musallin wuxuu u sugan yahay kuwa salaada tukada ee salaada waqtigeega alladina hum an salatihim sahun salaada waqtigeega dib uga dhigaya ayuu u sugan yahay ka tukan maxaad u malayn marka waqtina laga ma dhaafay salaada sarajooga hadda kari weydid la fariisa lagu yiri fadhiga ku tuko fadhiga hadda kari weydid jiifka ku tuka lagu yiri jiifka hadda kari weydid tilmaan barid ishaar bas kari weydid qalbiga ka tuka lagu yiri isaga oo caafimaad qaba oo qoslaya oo waxba qabin qofka ka taga maxad u maray marka khatar buu ku sugan yahay nabiga calayhi salaatu wassalaam waa laga khafiifiyay salaadihi shan waqti baa laga dhigay waa loo dhawaaqay nabiga calayhi salaatu wassalaam qad amdaytu fariidati waan socodsiiyey buu ilaahay fariidadaydi waajibkii shantaa waqti baa inagu farada وخففت عن عبادي الضمضي ذا نوان كخفي في يد إلهي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحا أماشا كسو أركي وحواوين بسو أركي وحلوك حيئين وحلصوات الصوت لنريه من آياتنا بإلهي وحربنا إن النبي أن صوت سنة آيات كيغا نبي إبراهيم والله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نبي موسى والله صوت الصي لنريك من آياتنا الكبرى بلغوير ما أشطر لغوير نبي محمدنا إلهي وحا كل يهي لنريه من آياتنا وحربنا إن النبي أن صوت سنة آياتها يجواوين علامات كيجي إن صوت سنة نبي وحو سو أركي عليه الصلاة والسلام ملقي لأورني مالك لأورني وأقاسمها مفتاح النار تهيوية نار تكشقية مسؤول كوين النار مالك بالي هذا يا مالك ليقضي علينا ربك وتلهين أهل النار أيو سو أركي النبي عليه الصلاة والسلام وحو أركي ملقاس أو لا يضحك عن قسلي أيو أركي وأدو عريسا مركاسو ويدي ملك جبريل ملك نوام محيبين وحاو يدي وملك النارتا مالك بالا يدهدا مركو أركي النارتا كدب مقصلي مركو إلهي النارتا أبوري عبسيقك عبسانا يا النارتا أيو لمرو قيسيه منا قصلا نبي قوحو صو أركي عليه الصلاة والسلام ددك عنا xoolaha agoonta cuna dulmi iyo ku cuna xumaan ayuu soo arkay habka loo cadaabayo iyaka oo faruuriye waaweyn leh oo dhagax nara afka lagaga gurayo ayuu arkay nabigu calayhi salaatu wassalaam dhagaxaasi oo dabada uu ka baxay markuu malaga uu weydiiyey malaku jibriil waxa uu yidhi waa kuwa xoolaha agoonta cuna sidaas loo cadaabi doonaa كدبنا النبي عليه الصلاة والسلام وحو أركي ذاتك الربا عنا وعلو شود أيوا وينتهي ونسعون كريم وآل فرعون إيا قرابدي سي مركا النار الله وضو أي كتهم منيان ووين أيو أركي النبي عليه الصلاة والسلام وحلقوا إلى هبكا سالو عذاب يكوى الربا عنا كدب النبي وحو أركي عليه الصلاة والسلام هو الزنيستا sida loo cadaabayo ayuu nabigu arkay wuxuu arkay qaar hilib bisil agyaalo oo qurux badan oo wanaagsan dhinaca bidixna uu ka xigo hilib qurmuun oo aad u daciifa
markaas ayay cunayaan hilibka daciifka ah taagta yar ee qurmuun ayay cunayaan markaas waxa uu ku yiri malaku jibriil maxay yihiin kuwani markaas waxa uu yiri waa kuwa zunaada naag xalaal oo haysta oo wanaagsan markaas uu xaaraan ku zinaysta wuxuu soo arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarkii anshaxa xuma xaaraanta sameynaya oday bay leedahay markaas ay zinaysanaysa wuxuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyaga oo naasahooga lagu xiray meelo oo soo laalaadaba nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo arkay waxyaalo badan nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka ilaahay buu nabigu soo arkay kadib nabiga waa la soo celiyay calayhi salaatu wasalaam waxa la soo tusay jannadii wanaaga iyo khayrka alla ugu ballan qaaday ayaa la soo tusay meesha ay geli doonaan bilaal عمار يرقي ووناكسنا جنوينك أي قري دونان أي النبي قال صوته عليه الصلاة والسلام كذب إسلهبين كابه نبي وحى لقصه علي بيت المقدس وحى النبي صافه لي دابدي البراق أي النبي صافه لي عليه الصلاة والسلام وكو صعد النبي أي النبي وحى صاعك وحيالا بدن بود أحدا أو صاعك إسلهبين كابه وحو النبي عليه الصلاة والسلام ريمك أولي هردا وإسكو هردا ولي وهبين كيلو ديري أي النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسودقي ماشاس الصباح دي كنت كذي ومكة وإسلهبين كي أي كنت كذي صلاة دي صباح أبو جهل بن النبي ويمد استقوا النبي مال فردية oo ka fikiraya gaarsi baa la yiri gaarsi xalay in lagu kaxeeyay awal bay nabiga beenin jireen calayhi salaatu wasalaam haduu u waramo inuu xalay uu tagay baytul maqdis oo samooyinka oo dhan uu soo maray oo dib loo soo celiyay baytul maqdis oo xalay hadana maka u yimid barmaysan doonaan abu jahl baa sidii caadadiisii nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaas uu ku yiri maxamed waran maxaad haysaa war نبي وحكود عليه الصلاة والسلام وحكى له للسعودي أبو جهل المطعم ابن عدي يا للسعودي يا وليد ابن المغيرة رجع سال للسعودي ورجي قريشات ماذا حقك مركز النبي وحكود عليه الصلاة والسلام جيسي ويا النبي يقول لما عبسنا يدعو ديسه وموتينا يا وشيء يا هبب بينيا النبي عليه الصلاة والسلام هبب بينيا لكن رسالة دي النبي هو جودنيا وجارسينيا فرينتا ربي وجارسينيا النبي هو حاول حال عشاء حقنا إنه قلته كذا في هذا المسجد مساجد كان إنه قلته كذا صباح دينا وكنت كذا وينك يا أركيا أنت قد حيسي عشاء الصبح ولا إكحيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام بيت المقدس بلا يجي وفلسطين كياله حقانا وحا كسو أركي رسوشي أنبياء ذي إلهي أيام كسو أركي إبراهيم إيا موسى إيا عيسى أيام كسو أركي بولي النبي عليه الصلاة والسلام وانسوتو تجيب النبي عليه الصلاة والسلام وانا الله الله وذيقي أبو جهل أي النبي كل ديلي محمد أبولي جوكسو فالنوت المام سيدو إيك هايين سيدو إكاين بالرجع أبصو أرتي عيسى إيه إبراهيم إيه موسى إيه رجع سيدو إكاين نبي جوحة أولي عليه الصلاة والسلام نبي عيسى نحن حاد بوها ولا بوينا شاف وينا ويرتي ما أتكا وتي ببضنا بو عادي هاي عصانا تشكي سوا كوتشيري وهو إيجي هاي بالنبي جوري عروة ابن مسعود نك اللي يلاهد أيوه إجاه النبي عليه الصلاة والسلام نبي موسى ولفوا يهبوري آدنا ودير يهي الكهيس وحوغا ويسكر ساريه ووجه يرؤر السنة نبي إبراهيم
والله النبي إبراهيم أنيقو إيجي بيدي خلقا وخلقا ذبيعد يا أبو رتامبا أنو إيجي النبي إبراهيم عليه السلام أبو جهل ما مصيو وحن والنبي قلت المامي رحبك ما قرنيو ولسو بودي هدنا وحول يا محمد بتاعوك هذيو بيت المقدس سدو أكتهي بيت المقدس نوغشة كيف فلسطين ماشي أتكسو تكتي سدو أكتهي النبي عليه الصلاة والسلام وحا يلي دخلت ليلا وخرجت منه ليلا هبين بانقالي هبين نوان كبحي يعني النبي وحا ودوني إنه يلهدو سانو قرن مايو تمامي كري مايو إسلام مركب النبي قوال له وحيودي أنك كتوسينا النبي قال عليه الصلاة والسلام سيدها أورن أنك كتوسينا جبريل بابات كيسا كالفر يكون ما أركيان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحالة تصي بيت المقدس أهرتي ستاقن ساجدك مركز النبي قلت المامي الباب وين باتشيرا أو صداسة وحقا أوجيدا الباب يربا أكتيساء إلهي منكر النبي قيس إنو تص إلهي وكرا ما أنت وديك أركي إنسانكي تلفزيون وداوانيسا وحمريكا كسعودة يا داوانيسا إسلا حدا أي داوانيسا نبي محمد والله تصي عليه الصلاة والسلام تلفزيون ربانية أي الله هردقك مركاسو أركي يا النبي عليه الصلاة والسلام مركاسو لي قريش إذا يستا بيت المقدس لا سوء أكته كعب الباب كاسيلاده الباب كاسيلاده وين أركي رجاني وين كرتين إنه هو شيء جيد waxay ku yiraahdeen bal noo waran maxaad soo aragtay dhaxda marka soo socotay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam markaan soo socday waxaan arkay safar ay reeb bani fulaan leeyihiin reebel ay leeyihiin waxaan ku soo arkay nabigu markuu soo socday calayhi salaatu wassalaam buraaqdu ayuu fuushana labadii malagna harraha ka socdeen hoos baa loo soo dhaweeyay nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu soo arkay safarkii quraysh ay dirsatay saddex safar baa ku jiray safar dariiqa ku soo jiray bil baa loo socon jiray yani bayt al-maqdis ilaa makka bil baa loo socon jiray inuu dhaxays dariiqa ayuu ku soo arkay marka nabigu waxa uu yiri waxaan soo arkay dariiqa markan ku soo jiray safarkii reer fulaan baa soo arkay meesha rawxaa la yiraahdo ayay soo socdeen waxa ka lumay hal baa ka lumtay way raadinayeen gebigood intay xoolahoogiiyo meel ku xidheen ayay hashii raadinayeen buu yiri nabigu calayhi salaatu wassalaam nabigu waxa uu yiri meeshaasaan ku dhaadhacay weel biyo oo meel ku samaysteen oo daboolna ayaan daboolkii ka qaaday oo ka soo cabay biyada ama doona kadibna nabigu waxa uu yiri calayhi salaatu wassalaam weydiiya buu yiri haddaad beenta moodaysaan weelkaa biyaha ama samaysateen kadibna waxa uu yiri nabigu waan soo socday waxaan soo arkay safar kale oo reeb bani fulaan ay leeyihiin ayaan soo arkay markay safarkii awrtiiba iga diday buu yiri nabigu calayhi salaatu wassalaam awrtii ayaa iga diday awrba isagu fadhiyay buu nabigu calayhi salaatu wassalaam awrkaa fadhiyay wuu casaabu nabigu calayhi salaatu wassalaam weel weyn baa dul yaalay weelkaa wuu sheegay tilmaamtiisa sidaasuu eekaa ma garanayo buu nabigu yiri awrkaasi ma lug baa jabtay wuxuu u fadhiyey mise ma garanayo laakiin awr baa fadhiyey la yidhaahdeen tanna inoo qora hadaba raba safarkaasi raba inay weydiiyaan kadibna nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam waxaan soo socdaba meeshan agteena ee tanciim la yiraahdo waa meel yar oo Makka agteeda ah markaan joogo ayaan waxaan arkay safarkii kale ee reeb bani fulaan oo soo galay ayaan arkay waxa ugu horeeya safarkaasi awraqa yani cadaan iyo madow isku jira isagoo oo nabigu uu sheegayo ayuu safarkii soo galay markaasuu nabigu yiri waha hiya tatlu'u alaykum wa tahda soo galays safarkii oo socda hay samay nabigu wuxuu ordo oo weydiiyay iyaga way dhaqaaqeen waxay arkeen nabigu siduu sheegayay calayhi salaatu wassalaam siduu sheegayay tilmaamtu sheegayay safarku inuu sida u kala dambeeyay wixii oo dhan bay arkeen
الله بيده والسحر كوين سحري النبي ممر بين جيرين عليه الصلاة والسلام وحي هذا محمد سيدا النبو ورنت صاحبك أبو بكر صديق ما أبو الرمي هابوا للنبي عليه السلام وحي هذا ما أنت أمان هلي ما أنت أبو بكر بيني ركب ذنبا النبي ويمد أو رمي النبي أو صحابته وكشكي النبي عليه الصلاة والسلام حالي ما تكتي بيت المقدس وهذا السموي كتضبط السمال وجاي ولا جسوع اللي حالي قارب ذنبا كشكي قارنوي قالوا بين بقى النبي وحى إلى أرض أبو بكر أتقى وشاق أبو بكر بالله يا عمان طب أبو بكر كقالوا بين هذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر بأتقين وحيكون هذين صاحبك وحى إليه أبو بكر دقيسو وحى إليه حلب لإكحي أو بيت المقدس لإجي أبو بكر وحى إليه أو قال ذلك أنت ميوي للنبي نعم بين هذين وحى إليه والله هدي أنك أويلي وانرمي الله أكبر وانرمي بيلي ويبودين أو تصدقه ياد رمين إنه حالي وحقا أنتو كتكي بيت المقدس أوتاقي كدبنا وسموينك أوتاقي وإسلام مركبة وصوان نقضو ساكن الأول بريستماد رمين والله وحا أجيل أرين كفو وحا أدشيغي سان أرين كدران أيان رمي عنه وحا رمي مالك وحيك كسو دقيا إيه تضبط السمو البريخسي كم مريا أيان رمي أنا كنت بيل بالنبي البريخسي هو إيمانيا إني قلنا واحد حالة أوردن أيها السيوة حالة أوردن ويدارتها البريق سيبا رمينا يعني كوي رضي الله عنه النبي يقول بحي الصديق أبو بكر الصديق رضي الله رمينا مر والبا نبي يقول أكتاقنا عليه الصلاة والسلام نبي الله وانكر رمي نبي الله وانكر رمي بمر والبا أرني نبي يدو بسي عليه الصلاة والسلام قال دي أوردن بعد النبي بينينيس ما حالي بقى سعوتي خالية سوق علي تتبضل أو مسلمين يا قالوا سيقول محمد والبلاك تاقية وانكر رمي يا رسولك إلهي يدعو بسي مركا صحابة استيرا خلافات النبي يقول ورجل صاحبك أبو بكر إيداي ورجل النبي إيداي أبو بكر صاحبك ساس ورجل النبي عليه الصلاة والسلام نبيك والله سور رحي عليه الصلاة والسلام وصو صبر النبي وصو أرك إلهي وحا الدياري وناك إيا خيرة أي النبي صو أرك سنة كاس كوبية طبعا مركة أهيد نبي نمذ وحا هراو قصو هذا اللي وحا نبيك عليه الصلاة والسلام حجدي كهريسي سنة كوبية طبعا والنبي يقول لكم عليه الصلاة والسلام لح ريم مدينة أهل يثرب ذاتك اللي أورنجي مدينة كيمد لح كميدا أيو النبي يقول لكم لح ذان أيو إسلام كأشرحي وهم النبي عليه الصلاة والسلام رجع سيدب يقول نقدين مدينة وحي بلابين إن الدعوة دي إسلامك أي كفا فيان مدينة أي بلابين حجدي السنة كي الدنبي وسنة كي هذا وحكوشنا اللبية تبانات أيها النبي وحى أيمد لبيئة طبن أي أيمد أو ريم مدينة أهل يثرب أي أيمد لبيئة طبن شن لحدن السنة كي هراء إسلام أي كمديه خضبنا وشديد وأوس إيا خزرج لبدي قبيل المدينة دقنا أي ككوبيين النبي عليه الصلاة والسلام أي وحي كل من ماشى اللي يراهدو العقبة من كتالة أي النبي كل من أحد بين النبي قال لك عليه الصلاة والسلام ويلبى يعتم النبي ماشى النبي قال كل من والنبي تبني وريم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وحو أرادين يا دعوة سن ميل بأرادين يا دولة بأرادين يا وحو أرادين يا ميل سود دوية دت سود دوية ونبي قل دعوة الله تجا ودعوة سكفها فيه ما كوا كم حدق ويديد النبي عليه الصلاة والسلام النبي مركا وحا أراديني ميل بأراديني لبيئة طبعا كان أيو النبي كل من ماشى العقبة من كتالة عقبة اللي هذا
عهد بولقلي بيعة النساء باليدهدا بيعة الدمرك نبي وحو كلبا يعتمي عليه الصلاة والسلام إنين إلهي وحب أشريكين أين وحب حدي وين الزنيسن عرورته ذا أين الليل وحمان أو بين أبورا إنين اللئمن وح معروف أو وناق إنين النبي إنين كعاسين قفكي الدنب كدعة عدي أدونك اللغو عقابه كفارة أتحي أدى اللغو عقابنا إستاق يا ربي قوية هذا الدون إلهي وكعفي هذا الدون إلهي وكعقاب ضلن كاس أي النبي يقول أحد ياس النبي يقول لبي طبعا كان الله قال إن الدعوة أي فافيان نبي يقول الراعي صحابي شابك أها نيرت أها إلورني مصعب ابن عمير أي الراعي النبي عليه الصلاة والسلام كعب مصعب واللبي طبعا كان الراعي مدينتك دعوة فافية بالنبي عليه الصلاة والسلام مصعب ابن عمير ودقاقي وويليار أو دلين وآد في فرعون ونشيطة وقارئة القرآن كآد حفظا ويان رضي الله عنه ودقاقي وحاو تجي مدينة صحابي إسلام يسقون أسعد ابن الزرارة أي قريق يسكسو دقي وحي بلابين مركز إن الدعوة أي كشاكستان سيدة أفا في اللهايين مدينة للرباء النبي قال وسور دوي عليه الصلاة والسلام وأسي قال حدا يا النبي عليه الصلاة والسلام تذكسي إسلامنا يان قريها الرباء إن الجران إن ما لها صور من دعوة كفا فيان بين ربان ولوسي قال حدا يا إيمان تيجي النبي وإيمان دون عليه الصلاة والسلام مصعب ابن عمير أسعد ابن زرارة وحي بلا بالمكة الدعوة إن فافيان أسعد ابن زرارة هي مصعب بإسراء مال ما كان بذا وحي أتجي ريب بن عبد الأشهل إيو ريب بن الظفر لبقى بالويين بيرتو دي بقلين ريب بن الظفر بيرتو دي بقلين عين ليلهدو بئر مرق ليلهدو أي فريستان ضدك المسلمين تأهابا قصة أوروي سوي من حقا وإشاكي سنين دعوة الإسلام كأي لك إشاكي سنين وحماشة شوقا وذي اللي يلاهدو سعد بن معاذ هي أسيد ابن حضير لبضا نبات شوقا لبضا نين ريب بن عبد الأشهل أي مالك أويهين يكا مضحوة والله بدنا نين إلا قدام باي وسيدك والله بدي سيد إلا قدام باي وياه قال يا أخي الله بدو وحياك أو ماشى فدية أو شكي سنية أيا وحي أركان سحابي مصعب بن عمير يا أسعد ابن زرارة يا رجل كلاء سو إسلام أو ماشى شوجا بيرتا وكل شكي سنية ودعوة كشكي سنية سيدين تؤفى في النهاية كشكي سنية أيا كان سعد أيا أسيد كويري وحي سمينا يان أرد أتك لبضير عيالك إنك تشيدانيا دعوتك لي مادين وحي الربان إن ماشي دعوتك لكفها فيان بين ربان لبض النية مارت اللي يلاهدو مصعب بن عمير هي أزعد بن الزرارة لبضها وين نسكق قبلنا أرد أدوك أتك بكويري وسيد بكو أرنيا أنيقا أسعد أيها بريرتين الشيء مركا مدوني إن الله الله أرد أدوك أسيد أتك وإنك قبل بيوتي هذيك لا دعوة ذني وفافينيان تدك أردن بإسلامي مركز دم فرح كبيح عرمه أسيد مرج بوقات ما ورم بوقات حقا يوح اسكسي داي بارتي ريب بني ظفر أي لهايان مصعب ابن عمير هي أسعد ابن زرارة أكتود أي يستاقي ورنكي ولك كتاقي markaasaa waxa uu ku yiri Mus'ab maxaad rabtaa wiilyahow markay soo socdeen markuu soo socday Usayd marka uu soo socday ayaa As'ad ba Mus'ab ku yiri wallahi waxa inoo soo socda nin sayida inoo soo socda waa ninkii Usayd ninkaasi hadduu islaamo rag badan ba islaami oo reer Madiina ku dadaal
siduu ninkaasi u islaami lahaa warankii buu meeshii ku taagsan markaasaa waxa uu yidhi maxaad rabtaan waxa aad faafinaysaan maxay tahay caybu markaa bilaabay inuu caayo muscab baa si yaroo degan muscab wuxuu ka soo baxay madarasadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma caayino ma boodino marada ma dhigano ma oran ii soo bax may dacwo iyo khayr buu faafinayaa muscab waxa uu ku yidhi awa tajlis fatasmac war ma dhegaysan intaad yara faliisatid mana dhegaysani arrinka aan wadno haddaad raalli ka noqotid waad aqbali haddii aad iska diididna ugu qasbi mayno annagu waan kaala tegaynaa markaasaa waxa uu ansafta si wanaagsan baad u sheegtay si cadaaladda aad u hadashay kadibna wuu fadhiistay muscab baa bilaabay inuu ka sheekeeyo islaamka ka sheekeeyo qur'aanka uu akhriyo waa wiil yar uu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed baa wax baray calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay inuu dacwadii islaamka ka sheekeeyo maanta haddii nin gaal uu ku yimaado uu ku idhaahdo diinka islaamka maxaad ka taqaanaa maxaad odhan lahayd waa la tukadaa waa la soomaa intaa umad ka sheegi laakiin qur'aanka ilaahay ma garan macaanida maad garan xikmadda habka loogu sheega miyaad garan intuba waxay ku dhan tahay muscab ibnu cumayr siduu u waday ninkii ayaa waxaa la arkay usayd oo dhalaalaya oo faraxsan ayaa la arkay kadib waxa uu yidhiba maa axsana haada wa ajmalah allah maxaa ka fiican oo ka qurux badan waxaa dadka aad ugu yeedhaysa war markaad rabtaan inaad islaamtaan maxaad samaysaan waxa uu ku yidhi waad maydhan dharkaaga daahir yeeli kadibna waad ashahaadan 2 ragcadoodna waa tukan wuu kacay isla markiiba wuu maydhay dharkiisibuu daahir yeelay 2 ragcadood buu tukaday markaasaa waxa uu ku yidhi ninbaa iga dambeeya waa ninkii soo diray ninbaa iga dambeeya ninkaasi hadduu islaamo khayr badan ayaa sugan magicii ninka ka dambeeya sacad ibnu mucaad allah khayra ku siiyo sacad ibnu mucaad ayuu ah ninkaasi hadduu islaamo khayr badan reer madiina dad badan baa islaami buu yidhi kadib wuu iska dhaqaaqay usayd qoomkiisii buu dhex galay sacadna wuu yimid wuxuu arkay ninkii oo isbedelay wejigiisii ninkii markii hore ingegsan buu ahaa gaalnimadu ka muuqato ninkii khayr ka muuqdo hadda oo markaasaa waxa uu ku yidhi war maxaa kaa dambeeya usaydu maxaad waddaa maxaad haysaa buu ku yidhi wallaahi khayr baan hayaa buu yidhi labadii nin waan la hadlay arrintoodu ma dhib weyn ma aha waan ka yidhi waa naga daayaan ku yidhi waxaad waddaan waayahay bay yidhaahdeen laakiin waxaad ogaataa buu yidhi reer bani xaarisa ayaa rag baa baxay waxay doonayaan ascad ibnu zuraara inay dilaan bay rabaan ascad ibnu zuraara maxay isku yihiin reertii baa dhash orodoo gaadh buu ku yidhi waxay rabaan inay dilaane wuxuu rabaa inuu meesha ka dhex baxo oo u tago xagga ayuu u tegayaa muscab iyo ayuu u tegayaa wuxuu rabaa inuu dacwada u fahmo warankii wuu la booday wuuse sii daayey yaa dili buu yidhi yaa dilaya xaggii buu tegey wuxuu arkay iyaga oo meeshii iska fadhiya ascad iyo muscab ibnu cumayr oo dacwadii faafinaya ayuu arkay markaasaa wuxuu dareemay inuu saaxiibkii siyaasad u dhigaya markaasuu meeshii warka ku taagay maxaad waddaan buu yidhi dacwada aad waddaan maxay ti muscab baa yidhi war in yar umana dhegaysan haddaad khayr aan sheegayno waad aqbali haddaan xumaan aan sheegayna waanu kaala tegi in yar umana dhegaysan haa buu yidhi yaro fariisa buu yidhi muscab baa bilaabay inuu dacwadii islaamka ka sheekeeyo oo qur'aanka akhriyo isagana waxay arkeen isagoo kolba dhalaalaya oo maad kadib wuxuu war maxaad samaysaan markaad islaamaysaan waxay ku yidhaahdeen maydho oo ashahaado u ashahaadso kadib qoomkiisii buu dib ugu soo noqday qoomkii baa yidhi wallaahi wuxuu inagula soo noqday weji kale ninkii aan dirnay weji kale ayuu inagula soo noqday markuu qoomkiisii uu soo dhex fadhiistay ayaa waxa uu yidhi reer cabdil ashhalow maad i taqaana anu ninkaan ahay haa bay yidhaahdeen sayidkaygii baa tahay wa afdalunaa ra'ya kii noogu ra'yiga fiicnaa baa tahay kii noogu fiicnaa ayaa tahay
waxa uu yidhigaysta haddaba inala hadli maayo inima aqaano ilaa aad ka rumaynaysaan ilaah iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam geebigood way wala islaameen ilaahay siduu islaamka ugu fudaydiyey reer madiina u fiirsiyo ilaa nin quraata mooyaane intii meesha reer cabdilashari meeshaa joogay way wala islaameen ninka al-asriim la yidhaahda mooyaane ninkaas isagu islaamkiisu dib buu u dhacay ilaa maalinkii uxud buu islaamay intoodii kale oo dhan way wala islaameen ninkaasi al-asyaram ayaa la yidhaahdaa isagu uxud buu islaamay markuu islaamayna waa la dilay isla markiiba markaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam camila qaliilan wa ujira kaiiran in yar buu shaqeeyey buu nebigu wuu islaamay oo jihaadkii buu ka qayb galay kadibna waa la dilay ajar badanna wuu helay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo islaamu jihaadka galay waa la dilay kadibna ilaahay agtiisa shahaadu qaatay muscab ibnu cumayr iyo ascad ibnu zuraara waxay bilaabeen inay dacwada ay sii faafiyaan oo u sii gogal xaadhaan nebiga calayhi salaatu wasalaam imaantigiisa iyo hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa guryihii madiina waxaa laga maqlayey ruux ayaa laga maqlayay waa qur'aankay dadka barayeen waa islaamka salaatuleylka habeenkii ayaa la maqli jiray iyagoo u tukanaya qur'aanka akhriyay وإنه تضبط هذا اللي يحدث جزاكم الله خير السلام عليكم